بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيسياشي قعنت عدو كسو بحي إسلام قراسي أو بدبادية شرف كينا أبال قدك قيسياشا يدني وسياسة ميلقا وقلدن وليك الرادين إياه أفرتا قضو بين سلول تاقينا السيقود بيو ميلا دايدر قارسيا هدين كور إنو قيسياشا قعنت عدو كسو بحي إلهي سبحانه وتعالى هبركيه وحن لنا سود وهذا هبل يبان لنا هاي وحن إلهي هاد نغينا إن إلهي قعنت عدو إذن كسو صاري وحن هاد نغينا عيد كستو هوشاس كقيب قادتي وقور رئيس الوزراء حمسة وسو مفري الباب إن محابيس لسيدا يو بفري وحن كلو آدي هاد نغينا سعيد عبد الله الدني ويسوقنا وحوي محاكرة طلابوين فواوين قاضي oo runtii waxa weeye maxaa ku raadayay kuna guuleystay inaad ka soo baxdaan xabsigii maxaa ku raadayay dhibka badnaa ee aad ku jirteen raggii idinka dambeeyana ilaahay waxaan ka baryaa inuu ka soo daayo waxaan kaloo aad u bogaadinayaa geesinimada iyo maxaa ku raadayay kalsoonida idinka muuqata weli waxay Allah ka dhigantiin inaad weli halgankii ku jirtaan cabdimudalib oo kale waxa weeye weli hal magaranaysaa iyo aarsade iyo ragga oo dhan weli waxa weeye hankiinu wuxuu marayaa boqolkiiba boqol buu marayaa allah idin barakeeyo baan idin leenahay guulaysta baan idin leenahay taariikh baad qorteen waxa weeye runtii lama ilaawaan aan la ilaawi doonin oo bugaag laga qori doono waana waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale waxaan kaloo aad iyo aad aan u bogaadinayaa islaan garaase oo door muhiima ka qaatay waxa weeye maxaa ku dhaha dhagar la soo maleegay oo waxa weeye la doonayay in laynaga dhex kalluumaysto oo waxa weeye maxaa ku dhahdaa belamadow waxa weeye maxaa ku dhaha uu xambaarsanaa oo caqli xumadiisa uu lahaa waxa weeye maxaa ku dhaha harti iska horkeen oo harti kala qaybi oo harti isnacsi oo mid soo dhaweyso oo mid fogee dhaqanka noocaasa waxa weeye daciifnimada waxa weeye maxaa ku dhaha aan ku dhisayn magaranaysa caqliga carruurta xitaa ay garan karto waxa weeye maxaa ku dhaha ilaahay waxa weeye maxaa ku dhaha dhagirtaas garansiiyey dhaqankeena oo waxa weeye maxaa ku dhaha islaan garaase u horeeyo oo islaan ciise ku xigo waxa weeye dhammaan waxaan leenahay guulaysta baan idin leenahay allah idin shafro allah idin karaameeyo waxa weeye maxaa ku dhahda maasha allah baan leenahay allah noo kiin daayo ma garanaysaa waxaynu kaloo aynu rabnaa inaynu wax ka nidhaahno geesiyaashaas waxa weeye maxaa ku dhahda halgamayaasha ah ee dhiigooda u shubayay waxa weeye maxaa ku dhaha sidii ay waxa weeye maxaa ku dhaha cirdigooda iyo sharafkooda ay u difaaci lahaayeen walaalahood isu garab taagay waxa weeye maxaa ku dhahday labada sano xabsiga ugu soo jiray waxa weeye maxaa ku dhaha welina qadiyadii ku taagan waxaan leeyahay wiilashaasi waxay u baahan yihiin abaalgud dhaba bay u baahan yihiin abaalgudkaasi waxay u baahan yihiin waxa weeye maxaa ku dhaha waxay u baahan yihiin reero bay u baahan yihiin 11 waxa weeye maxaa ku dhaha geesi waxay u baahan yihiin 11 gabdhood oo reer SCA bay waa in la siiyo oo loo diyaariyo weeye waxa weeye waa in la dhaqaaleeyo oo loo magaranaysa maxaa ku dhahday magaranaysa maxaa ku dhahday xitaa reerahooda lagu maalgeliyo oo waxa weeye maxaa ku dhahday waxyaabaha ay ku ganacsadaan ama maxaa ku dhahday ay ku arooskooda iyo hawshooda waa in insha Allah bidmillahi karim ay la wareegto SSC khaatumo insha Allah bidmillahi karim hawshaas waxaan u malaynayaa waxa weeye kubaddu hadda waxay taalaa dhinaca SSC bay taalaa sida kubadda aad uga jawaabtaan na waa laydin eegayaa taariikhdaana qori doonta insha Allah marka waxaan ku soo leeyahay ragga geesiyaasha ah waxa weeye maxaa ku dhaha abaalgudkoodu waa inuu noqdaa mid muuqda qurba joogta guda joogta ganacsatada waxa weeye maxaa ku dhahday dhammaan iyo cid kasta oo ay qusayso gabdhihii guuti koowaada sharafta badnaa waxa weeye maxaa ku dhaha maamulka SSC khaatumo dhammaantiinba waxaan leeyahay hawshaasi waa hawl idiin taalla oo laydinka sugayo insha Allah bidmillahi kariim waxa weeye maxaa ku dhahda waadna samayn doontaan insha Allah waad iyo aad baan ugu kalsoonahay intaa ka bacdi in adeerkay Saciid Cabdullaahi Dani waxaan rabaa in yar inaan xusuusiyo waxa weeye runtii aad iyo aad baan uga xumahay Saciid Cabdullaahi Daniyow weli inaad siyaasadda ka raadinayso meel qalloocan oo qaldan oo qaaba qowsayna oo aan waxba ka soo baxayn inaad weli siyaasadda ka raadinayso aad iyo aad baan uga xumahay waxaana kaaga xumahay adiga ayaan kaala xumahay sababtu tahay uma qalantid inaad halkaa siyaasad ka raadiso waxa weeye siyaasaddu waxa weeye waa labo
وديرتي محاكرة البوليتيشن وسياسات وحوي محاكرة وسخة هي سياسات نظيفة لبضع مدوية يكلين محاكرة البوليتيشن محاكرة سياسات نظيفة سياسات نظيفة هي وطن وحوي محاكرة أورورينتا هي محاكرة إسباهايسيغا هي أهل لماذا هي عدالة هي محاكرة قلب فرنانتا هي دمع سنانتا هي وحبحنتا وحوي انتاس وحوي محاكرة هي هانكسرة هي هملا دير وحوي والسياسة وحوي محاكرة حلاش قوي سياسة ديرتيغا محاكرة قشن كأنا وسياسة حسد هي حقد هي حمين هي محاكرة كم فوقي وكان سودا ويسو وحوي محاكرة وحين كدن بيسا خسارة كدن بيسا الدون يا آخرة خسارة كدن بيسا أدوك مركب وحباد ويسو شوكتي سعيد عبد الله الدنيو وحباد ويسو شوكتي oo isku day horaad u soo samaysay inaad walaalka intaad fogeyso oo geed maxaa ku raadayga adag aad ku xidho oo aad inaad istiraahdo adiga kaliya macaash oo kaliya faa'iid waadna ogtahay waxaad ka dhaxashay muuminka laba goor god laga ma wada qaniino marka waxaan ku leeyahay meesha aad wax ka raadinayso waxba kaama jiraan siciidow kursi kaama jiro waxa weeye meesha waxa ka jirta dhagar dambe iyo hungow iyo ceeb kale ayaa kaaga jirta bal daaw fiirso hadaan waxa weey maxaa ku hadaan guwa ku kordha gabow mooye ku tarin garaad iyo waay arag ilaa wax ma dhaantid geed hadaad walaal gacal iyo shalayto aad waxa weey maxaa ku raadey wixii la soo maray aad soo martay oo maanta adiga saaxiibka Saciid ma garanaysa Axmed Madoobe aan idan wada hadli karin oo maanta ana dawladii dhexe waxa weey maxaa ku raadey saaxiibadaadii aad shalay shafka isku hayseen ee aad waxa weey jaalka ahaydeen qof aad maanta aad iskaga xidhantiin aanu jirin oo aad waxa weey maxaa ku raado go'doon siyaasadeed aad gashay oo waxa weey adiga duulaan lagu soo qaaday walaalo waxa weey waxaas waa waxaad ku jirtay weey waxaad ku jirtay iyo duulaankii gardarrada ahaa ee aad shalay adigu ku jirtay ayaa maanta kugu socda marka waxaan ku leeyahay dagaal dambe oo gardarra ah gelin SSC Khaatumo waa garbahaagi waa lugahaagi waa gacmahaagi waa dhagahaagi waxa weey maxaa ku waa garashadaadi adiguna inta in la midabaad u tahay adiguna waxaad u tahay lugaad u tahay oo gacmaad u tahay oo dhagaad u tahay oo indhaad u tahay oo waayeel baad u tahay oo oday baad u tahay oo madax baad u tahay oo waad ku soo tabacday oo wax badan baa ka galay wixii badnaa ee ka galay ee aad sharafta ku mutaysatay ee karaamada aad ku lahayd waxa weey ha iska ciideyn abaal baad ku leedahay SSC Khaatumo abaalka aad leedahay ha iska ciideyn hadalladaadina dib u dhageyso ee aad ka mid ahaayeen wax allaale waxa ay reer SSC go'aansadaan baanu diyaar u lanahay oo kula shaqeynayna oo ku garab taaganahay waxa weeye oo aad waliba go'aankii 6 February aad tir waanu aqoonsanahay waana soo dhaweynaynaa ha ka noqonin halkaas sharaftaadu ku jirtaa halkaas karaamadaadu ku jirtaa halkaas madaxnimadaadu ku jirtaa waxa la rabaa waxa xasan gartay inaad garan waayo حسن وحو قرتي حسن مامولو سميسانيا هذا وحن ما وحوي محاكرة مامولو سميستي وحوي قربيه ساعة أديقنا مامولا دي قربها كون نقول لها أياد سكرات دقالة بس هذا دقال سكوهية هذا سعيد عبد الله الدين ودنا دقال سكوهية مركا وحن كلها هاي دقال كاتشوتشي وبدل كارتلا ودنع كلا أورق إلى إن هاكو وافتشيو ودنت هذا ودنتنا ودنت الضلكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.